السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkani insha Allah eebidmo waxaan ku sharaxi doonaa sidii aan u qaatay trade-kii ahaa Euro GBP maalintii Khamiista oo ahayd isbuucii hore iyo qaabkii aan ugu qabtay lacag dhan $200 iyo Amazon. Marka trade-kan sida arkaysiin dhammaanteen sida ognahay aniga waxaan ku trade gareeyaa inta badan 1 hour time frame-ka. International waxaa ka qaataa 3 minute-ka 5 minute-ka sometimes 1 minute-ka. balse trade-kan intaas muusan ahayn waxaa kusoo analyze gareeyaa higher time frame entry waxaa ku qaatay 4 hour time frame. Trade-ka haddii aan isla eegno aan tagno weekly oo kale weekly markaasaan u tagno waa soo dhaweynayaa area-dan always price-kan waxaa sawirtaa labada qayb. marka price-ka sida arkay meeshaan ayuu maraya markii aan trade-ka qaadan rabay saan ayuu soo degay. marka area-dan sida arka waa area resistance horena waxaa u sheegnay in istiraatiijiyadeena ay tahay breakout retest oo ah in aan sugno price-ka in uu ka dhex baxo labada meeshii markaas oo price-ka doorto inuu ka dhex baxo. hadda in this case korkaas ayuu ka dhex baxay oo ah resistance-keena meeshaas ayuu kusoo dhex baxay trade-ka korkaas ayuu soo jebiyey. ogaada waa weekly time frame. time frame-ada waaweyn way ka xoog badan yihiin wayna ka fiican yihiin time frame-ada yaryar. halkan sida arkaynaa waa breakout oo clear ah area dhan waa la clean gareeyey. price-ka area waxaa lagu haystay ilaa iyo June oo ay bishii 6aad. marka waa la clean gareeyey kanalka retestiga ayaa soo socday. marka aniga ma sugi kari ilaa iyo weekly retest oo dhamaado. kaliya waxaa sameyn karaa inaan isticmaalo top to down analysis oo ah method yani aad kasoo bilaabaysid analysis-kaaga high time frame ilaa ku tegaysid ilaa type toosta. daily markaan sii tagno kanalkan daily sidoo kale wuu socday kadib 4 hour-kan sii tagay kadib waxaa ogaaday in kanalkan uu area-dan reject laga soo siinayo oo kanalkan buy-ga ah. sidoo kale wuxuu ii xaqiijiyey in buyers-ka meesha ay joogaan. sidee ku xaqiijiyey because candlestick ayaan markaan aqriyay. badanaa aniga ma isticmaalin candlestick pattern oo ah yani ma dhihi meeshaan waxaa sugaa ilaa iyo ii sheeg oo ka samaysmaayo candle ii sheegayo bullish momentum ama bearish momentum. aniga waxaa fiiriyaa rejection candlekan still weli rejection muusan siinin ilaan candle sell ayaa sii degaay. waxaas arkay area-dan rejection ayaa la siiyey kadib entry-ga bartaas ayaa establishment halkaas ayaa dhigtay waa second big. TV-geeduna wuxuu ahaa ilaa korkaas balse maadaama suuqa iska ahay khamiis volatility-giisa aad u badnaa GBP-na news oo ka jiray waxaan ka cararayay in GBP newskeeda oo isaameeyo. meeshaan trade-ka markuu marayo meelahan aniga trade-ka waa ka baxay profit-keygana waa ka qaatay. then waxaa dhacday candle-kan weyn oo sell-ka in hoos u soo dego haddii xitaa ay noqon lahayd in stop loss iyo entry-ga cancel lahay still $2 trade-ka aniga waa ka bixi lahaa. marka maraba muuqaalkan inaan dheereeyo just waa intaas keliya. waxaan tagay weekly hadaa mar labaad ku celiyo weekly markaa tagay area-dan waa area resistance ah price-ka kor ayuu u jebiyey. then kanalkana waxaa dhahay retest ayuu sameynaya markaa arkaya. then daily-gaasay tagay ma sugi karin ilaa iyo daily time frame uu dhamaado. inkastoo igu dhamaaday oo markaa trade-ka galayay already daily time frame oo kanalka xirmay balse 4 hour waxaa kasii raadiyay in oo yani anything ii sheegi karo in yani bullish momentum meesha ka jirto. horena waxaa u sheegay in method-kayga mar walba uu ku tiirsanaynin aanan ku xirin istiraatiijiyada inaan bullish momentum helo balse haddii aad rabtid more confidence micnaha more waxyaaba u xaqiijinayo trade-ka inaad si dad baa waxay isticmaalaan indicator ah balse ani indicator ma isticmaali balse markan waxaa sii raadiyay wax iisii xaqiijin kara ii sheeg in aan trade-kan sii qaadan karo. xitaa 1 hour hadaa sii tagno waxaa arki karnaa candle buy ah oo ii sheeg bullish engulfing iyo waxyaalahaas arki karnaa oo candle-yadan soo socday dhan engulf gareeyay candle-kaas bullishka ah. meeshaan waxaa arki karnaa candle-ka mother and baby oo I think waa bullish xaraami. marka trade-ka sidaas ayuu ahaa. sidaa fudud ayaan lacagta ugu qabtay waana ka baxay. hadaa kusii jiri lahaay waxa dhici lahaana waa kaa trade-kan waa laga saari lahaay meeshaas ayayna ku ekaaneyd.
faa'iidadii ayaan suuqa ka watay. Waxaa sidoo kale يعني muhiim sii ah in isbuucaas oo idil oo ahaa isbuucii hore in keliya aad ka qaadato halkaas trade ilaahi subxaana watacaala waafajiyey in oo noqdo trade lagu guuleysta. Marka intaa muuqaalkiisa xiga ku kulmi doono waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.